dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Suuriya waa utun aad u daran oo naxdin leh waxayna muuqataa mid aan suurtagal ahayn. waxa ay gacanta ku haysaa dhul eeg boqortooyada Ingiriiska waxayna geysataa gabood fallo aad u weyn waxayna aloostaa weeraro argagixiso oo dibadda ah. fahanka ISIS waxay naga caawinaysaa inaannu ogaanno sheekadaasina waxa ay ka bilaabataa meel fog iyo sannado badan ka hor inta aysan jirin ISIS. sanadkii 1979 midowgii Soviyeeti waxa uu ku duulay Afghanistan si uu talada u dhaafsho dictatorkii ka soo horjeeday jabhadaha. tiraba kumanaan dhalinyaro ah oo ka yimid Middle East ayaa u soo qulqulayay si ay ugu biiraan fallaagada ama waxa ay ugu yeereen loolalka barakaysan. waxaana dadkaas ka mid ahaa Osama bin Laden oo dhashay Saudi Arabia. Afghanistan waxa ku sugnaa nin caamo u dhowaa horena uu ahaa burcadjideed oo ka soo jeeda Urdun laguna magacaabo Abu Mus'ab al-Sarqawi. isma ay fahmin labadoodu weligoodna kuma aysan dhiiran laakiin waxay abuureen kooxaha aan maanta u naqaano Al-Qaacida iyo ISIS. Soviyeetku waxa uu ka baxay Afghanistan 1989 dagaalyahanadii Carabtuna waxa ay ku noqdeen wadamadoodii. bin Laden waxa uu Al-Qaacida ku korshay kana dhigay shabakad caalami ah. Sarqawi waxa uu samaystay koox u gaar ah ka qalafsan Al-Qaacida. labada nin ayaa markii dambe ku laabtay Afghanistan. September 12 2001 Al-Qaacida ayaa Mareykanka ka soo weerartay saldhig ay halkaas ku lahayd. Mareykankuna waxa uu weeraray Afghanistan. bin Laden waxa uu baxsaday Pakistan. halka Sarqawi oo weli ku jira mugdi uu u cararay Ciraaqda fog ee aan sharci uga jirin. My fellow citizens, the dangers to our country and the world will be overcome. Mareykanku waxa uu meesha ka saaray taliskii Saddam Hussein waxa uuna kala diray ciidamadii Ciraaq ee lahaanba. kumanaan kun oo askari Ciraaqi Sunni ah oo caraysan oo shaqo la'aan ayaa ku biiray fallaagada. kooxaha jihadoonka Sunniga ayaa arrintan u arkay mid soo noqonaysa kadib duulaankii Soviyeetka ee Afghanistan. kooxda Sarqawi waxa ay noqotay Ciraaq tan ugu naxariista daran. waxa uu si gaar ah u weeraray Shiicada oo ah aqlabiyadda Ciraaq isagoo si ula kaca u hurinayay dagaal sukeeye oo Sunni iyo Shiica ah. 2004 Sarqawi waxa uu noqday xiddiga jihadoonnada. Al-Qaacida oo go'doonsan waxa ay isku dayday inay xoojiso sumcadeeda iyagoo samaysatay isbahaysi lana wadaagtay Sarqawi. sanadkii 2006 Sunniyiinta Ciraaq ayaa ka soo horjeestay Sarqawi waxaana Mareykanku ku diray duqayn cirka ah. Mareykanku waxa uu ka baxay Ciraaq 2011 iyadoo aad u khalkhalsan. sanadkii 2011 kacdoonkii guga Carabta ayaa ku fiday bariga dhexe oo dhan. Suuriya Bashar al-Assad waxa uu si baan ula dhaqmay dadkii mudaharaadayay halka ay idina dib u soo hulciyeen taasoo keentay dagaal sukeeye. Assad waxa uu ka baqay dunidu inay soo fargeliso xaaladda. sidaas darteed waxa uu si wada jir ah uga sii daayay mujaahidiintii xabsiyada Suuriya isagoo fallaagada ka hor Kenya oo ku adkeynaya inay taageeraan shisheeyuhu isaga. marka la eego Ciraaq intii yareedii ka hartay kooxda Sarqawi kuna xirnayd Al-Qaacida laakiin hadda loo yaqaan dowladda Islaamiga ee Ciraaq oo hogaaminaya Abu Bakr al-Baghdadi. horaantii 2012 waxa uu u diray ku-xigeenkiisa Suuriya si uu u asaaso laan cusub Al-Qaacida garabna siisa jabhadda al-Nusra. bishii Abriil 2013 al-Baghdadi waxa uu ku dhawaaqay inuu la wareegi doono dhammaan xoogga taawacsan Al-Qaacida Suuriya Ciraaq. kooxdiisuna waxa ay ku fitay Suuriya waxayna noqotay dowladda Islaamiga Ciraaq iyo Suuriya ama ISIS. Al-Qaacida ayaa diiday qabsashada al-Baghdadi ee awoodda talada. labada kooxood ee jihadoonka oo muddo dheer iskhilaafsanaa ayaa hadda dagaal ku dhex maraya dalka. ISIS ayaa ku xoogaysanaysa Suuriya qayb ahaan sababtoo ah Assad oo u dulqaatay kororkooda taasoo ujeedo ahaan ahayd in lagu kala qaybiyo gudaha Suuriya cadowga. waxaana quwadaha shisheeye hadda diiradda saaran Daacish taasoo ah walaaca koowaad ee Assad. bishii Juun 2014 ISIS waxay ciidan ka dhistay Suuriya waxayna bilaabeen duulaan qaab ciidan ah kuna aadan Ciraaq. ciidanka Ciraaqi ma awoodin dagaalka musuqmaasuq saameeyay awgeed. Sunniyiin badan oo ka daalay takrifalka dowladda Shiicada ayaa soo dhaweeyay ama ugu yaraan u dulqaatay imaatinka ISIS. maalmo gudahooda ISIS waxay gacanta ku hanatay 3 meelood oo meel Ciraaq iyo inta badan Suuriya ka mid ah. hadafka ISIS uu ka geesisan yahay wax kasta oo Al-Qaacida u malaynayso kaasoo ah soo noolaynta khilaafada iyo dhulbalaarsigeeda. dhammaan muslimiintu waxay aaminsan yihiin in dagaalku yahay mid barakeysan keeni doono dhammaadka adduunka sida lagu saadaaliyay kitaabka. kumanaan muslimiin ah oo ka yimid bariga dhexe iyo Yurubta ayaa u qulqulayay si ugu biiraan kooxda. qaarkood
waxay ugu biiraan sababo diimood laakiin qaar badan waa ka niyad jabsan yihiin ama ka xanaaqsan yihiin maadaama ay ka sugayeen ISIS inay siiso jawaabo iyo ujeeddooyin rasmi ah. ISIS si degdeg ah ayay ku guulaysatay bishii Augustana waxa ay weerareen dhulka Kurdiyiinta ee Ciraaq iyo Suuriya. tanina waxa ay dhalisay weerar rogaal celis oo ay soo abaabuleen xoogga Kurdiyiintu. sidoo kale ISIS waxay xasuuq baan u geysteen Yasiidiyiinta Ciraaq, waxayna dileen wariyihii Mareykanka James Foley oo ay kabadhu soo duubtay, waxayna ka cariisisay dunida keentayna olol dhinaca cirka oo Mareykanku hogaaminayay. inkastoo aysan u adkaysan karin weerarada, waxa ay lumiyeen in ka badan 5 meelood oo meel ay haysteen, iyadoo laga jawaabayay weerarada argagixisada ee sii kordhayay argagaxa leh ee ka dhacay gudaha Beirut, Kuwait iyo Paris. waxaa lagu yeerayeyda keligood ah ee ay dhiirigelisay dacayada ISIS ayaa sidoo kale qaaday weeraro inkastoo ay aad u badan yihiin haliyada iyo waxtariyada ay leeyihiin. ugu dambeyntii ISIS waxay lumin doontaa maqaamkeeda maadaama aysan lahayn xulufo iyo maalgeliyaal cadowguna uu ku xeeran yahay, waxayna ku laaban doontaa wixii hore ee uga timi alqaacidada Ciraaq ee ahayd iska cabinta iyo kooxaysiga dabcan.